horta cilmiga beeraha inuu muhiim yahay cid kasta waa ogtahay adduunka wadan horumar gaaray ma jiro hadal ani aan leeyahay ma waa hadal oo baaritaamo badan lagu soo sameeyey wadan horumar gaaray ma jiro ilaa in uu noqday wadan horumariyay dhinaca cuntada oo beeraha horumariyay ma ahane boqolkiiba waliba waxay yiraahdeen 78 cuntada oo cerealka iyo cuntooyinka la cuno dibadda ka keensanaa waxaa jira qolooyin hay'adaha NGO ah oo badan oo dalka keena seedka beeraha oo sheegay inay dadka ka caawinayaan tabcashada beeraha seedadka marka koowaad degdeg ayay ku soo baxaan laakiin marka dambe dhulku waxba kama baxaan oo dhulku wuxuu nabaad guuraa arrintaas ayada maxaa ka jiro marka baahidii waa jirtaa beeraleydiina aad ay wax ugu baahan yihiin dad wax yaqaan oo u yimaado oo jaamacadaha ka soo baxay oo la shaqeeya ardadiina waa u baahan yihiin laakiin dhibaatada ka jirta oo ugu weyn waxaan u malaynayaa inay tahay waxaan rabaa inaan cilmiga beeraha barto dhowr qaybood baana loo qaybiyaa marka keebaa ugu fiican inaan barto mahadsan bismillah assalaamu calaykum muuqaalkan waa muuqaalkii ugu horreeyay oo muuqaalo taxane ah oo aan doonayo inaan ku martiqaado dad ku takhasusay kana shaqeeyay aqoon durugsanna u leh kulliyadihii iyo takhasusaadkii hore ee aan soo sharxay muuqaalkan insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa muuqaalada xiga inay noqdaan kuwo bille ah oo aan bishiiba mar ku martiqaadno qof aqoon-yahan ah oo takhasusaadkaas iyo kulliyadahaas aan sheegay ku takhasusay kadibna insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa inaan dadka ayaga ah weydiino waxbarashada kulliyadaha ayaga ah muhiimadda ay leedahay barashadooda suuqooda shaqada iyo waliba sida ardada danaynaya ama dhalinyarada danaynaysa inay takhasusaadkaas bartaan ay fursad uga heli karaan ayna ugu noqon karaan kuwa mustaqbalkooda baraare iyo barwaaqo ku gaar muuqaalkan ugu horeeya insha Allah tacaala waxaa marti inoo ah Ustaad Cali Baashi oo ku takhasusay kulliyadda beeraha darajada koowaad iyo tan labaadna ka diyaariyay Ustaad Cali Baashi sidoo kale waxa uu leeyahay channel YouTube-ka oo uu ku soo gudbiyay cilmiga beeraha channelkaasna waxaa la yiraahdaa Farm Somalia waxaadna ka heli kartaan description-ka ama sanduuqa tilmaamaha ee channelka muuqaalkan hoostiisa Ustaad Cali Baashi waxaan ka wareysan doonaa kulliyadda beeraha ahmiyadda ay leedahay iyo waliba suuqeeda shaqada sida fursado looga heli karo wadankeena sida uu ugu baahan yahay kulliyadaas beeraha waxaan soo dhaweynayaa Ustaad Cali Baashi oo shaashada ka muuqdo bal inuu soo dhawaado iskana bixiyo si kooban fikrad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cabdiweli waa mahadsan tahay saa igu martiqaaday kanaalkaaga shaqo fiican ayaad haysaa oo bulshada u haysaa aad ayaa ugu mahadsan tahay. Magacayga waa Cali Baashi sidoo Cabdiweli uu sheegay waxaan joogaa wadankan Ingiriiska jaamacaddii heerka koowaad iyo heerka labaad oo degreega iyo masterka waxaan ku sameeyey kan beeraha ayaan bartay ilaa 2012 waxaan ku dhex jiray dhinaca beeraha maraan ka shaqaynayay iyo maraan wax baranayaba 2018kiina intii aan masterka sameynayay waxaan tagay Soomaaliya si aan khibrad uga soo qaato oo soo fiiriyo xaaladda ka jirta Soomaaliya sababtoo markaan Soomaaliya ka soo tagay dhinaca beeraha waxba kama aan aqoon marka Soomaaliya tagay beeraha ayaan ka soo shaqeeyay xaaladda wadanka jirta ayaan soo qiimeeyay intii aan waxbarashada ku jiray marka bacdina waxaan sameeyay barnaamij la yiraahdo Farm Somalia oo ugu talagalay in maaragtay dadka Soomaaliyeed oo beeraha xiiseynaya inay ka faa'iideystaan oo ay ka bartaan dhinaca beeraha kuwa aan u soo jeedin beerahana ay arkaan muhiimadda ay beeruhu u leedahay haddii aan rabno wadankeena inaan gaarsiino isku filaasho dhanka cuntada ah marka barnaamijkaas ayaan sameeyay waxbarashadeedina noocaas weeye marka Cabdiweli masha Allah aad iyo aad fiican aad iyo aad waxaan marka hore insha Allah muuqaalka ku bilaabeynaa su'aalo guud oo la xiriira takhasuska kulliyadda beeraha iyo waxa lagu barto su'aasha koowaad waxay leedahay maxaa lagu bartaa kulliyadda beeraha kulliyadda horta beeraha markii la yiraahdo Soomaaliya badana waa la kala saaraa laakiin wadamadan reer galbeedka agriculture iyo horticulture ayaa loo kala saaraa wadamada kale adduunyada kala duwan gooniya loo kala saaraa marka hadda wadankan aan joogo kale waxa agriculture qofkii markuu sameynayo wuxuu wax ka baranayaa xoolaha farm machinery-ga beeraha waxa qalabka loo isticmaalo wax yar ayuu ka baranayaa businesska wax yar ayuu ka baranayaa managementiga wax yar ayuu ka baranayaa kabacdi wuxuu baranayaa ciidii wuxuu baranayaa cudurradii wax yar ayuu ka baranayaa xoolihii ayakana sidoo kale waxbuu ka baranayaa marka agriculture qofkii sameynaya waxyaabahaas oo dhan ayuu isku sameynayaa qofkii laakiin raba inuu sameeyo dalagyada kaliya iyo khudaarta waliba awoodda uu saaro wuxuu sameeyaa maadada la yiraahdo horticulture
marka horticulture dadka baranaya waxay ugu saaraan khudaaraha kala duwan iyo ubaxyada iyo kuwa guryaha lagu qurxiyo beeraha oo xaafadaha gaadhinada sida loo hagaajiyo qaybahaas ayuu bartaa qaybo kale waxaa jirta marka oo iyadana la barto la yiraahdo aan masterkii ku sameeyo la yiraahdo agronomy oo iyadana badana ciidda cudurrada noocyada daawooyinka la isticmaalo iyo sidoo kale markasta maadooyinkan oo dhan waxa lagu daraa marka business management kama maqna sababta waxa awoodda la saaraya qofkii inuu samaysan karo ama beer u maamuli karo ama uu beer samaysan karo marka waxa kale oo jira farm machinery oo kale in engineering gooni loo sameeyo engineering oo machinery ah samayso qofkaas uu barto agricultural technology bay dhaawan jaalaan inuu qaybtaas uu barto qofka oo machineryga sida loo sameeyo qaabka uu shaqeeyo waliba hadda machineryga soo baxay waa machinery oo isaga kaliya iswadiyo maaragtay beertii falaya oo automatic ah marka qaybtaas machineryga hadda aad ay muhiim u tahay oo dadka aad ayaa loo baranaya marka qaybtaasna waa gooni qaybo intaas ka sii badanna waa leeyahay aad u badan laakiin waxa ugu muhiimsan qofka qaybta asaga uu xiisaynayo inuu xoolaha xiisaynayo iyo inuu maaragtay haddii aad agriculture good aad samaysid wax kasta waxbaad ka baranaysaa laakiin meel gooni kuma takhasusaysid kii aan sameeyey aniga markii aan sameynay degreegayga waxaan sameeyay agriculture fast good wax kasta waxbaan ka bartay masterkii meesha aan ku takhasusay dhinaca agronomy masterka wax oo xoolo ah kuma jirin waxa aan sameeynay xoolo ma lagu soo darin waxaan baranaynaa kaliya oo awoodda la saariyo waa ciidda iyo cudurrada sida aqoonso lahayd noocyada kala duwan basically haddii wadamada afrikaanka qaar aad samaysid agronomy waxay u yaqaaniin dhakhtarka oo geedaha oo dhakhtarka geedaha veterinarian laakiin wadamada dhakhtarka geedaha ka soo laga dhihin laakiin Kenya oo kale hadaa fiirisid dhakhtarka geedaha ayuu yaqaaniin qofka agronomiga sababta qofkaas wuxuu baranayaa ciidii iyo dhibka ay u keeni karto iyo nooca u fiican geedkii sidoo kale wuxuu baranayaa calaamadaha lagu yaqaan cudurrada geedaha ay leeyihiin iyo wuxuu kaloo baranayaa daawooyinka kala duwan noocyada ay yihiin sida u kala duwan yihiin sida loo isticmaalo hadday noqoto fungus hadday noqoto bacteria hadday noqoto insecticide daawooyinkaas kala duwan ayuu baranayaa iyadana si fiican baan fahmay si fiican aad iyo waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada inta badan markii la yiraahdo kulliyadda beeraha waxay ku fiiriyaan nadaro aad u liidato oo dadka beeraha lama ixtiraamo cilmiga beerahana lama ixtiraamo lama qadariyo ardayda baratana waxa lagu fiiriyaa sidoo kale ilgooni ah marka muhiimadda ay leedahay kulliyadda beeraha ayaan doonaynaa bal inaan u iftiimino dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku haminaya inay wax bartaan mustaqbalkana nolol horumar la gaaraan ayagoo baranaya ama cilmiga beeraha ama culuumta kale horta cilmiga beeraha inuu muhiim yahay cid kasta waa ogtahay adduunka wadan horumar gaaray ma jiro hadal ani aan leeyahay ma waa hadal oo baaritaamo badan lagu soo sameeyay wadan horumar gaaray ma jiro ilaa in uu noqday wadan horumariyay dhinaca cuntada oo beeraha horumariyay ma ahane wadan warshad samaysta ma jiro marka anaga haddii aan rabno inaan wadankeena isbedel ku samayno waxaan ku qasbannahay inaan beeraha wax ka bedelno oo dhalinyaradeenna beeraha jeclaadaan oo wax la soo saaro marka dhibaatooyinka ardada haysata beeraha baran lahayd waxa weeye horta kow dhibaatada haysata shaqo meel u aadaan ma lahan inkastoo wadamo badan oo Afrikaan ah iyo meelo badan oo Afrikaan ah beeraha la leeyido haddana cilada ugu weyn taas ma ahan cilada ugu weyn waxa weeye in maaragtay qofkii dhalinyarada ah markuu jaamacaddii beeraha soo barto shaqo meel u raadiyo ma lahan sababtoo ah dadkii beeraha joogay dhibaatooyina iska jira amaan xuma iska jirta wax soo saarkii wuu liitaa marmarka qaar markii wax la soo saaro waxa laga yaabaa inay magaalooyinka soo gaari waayaan waliba waxaan ka hadlayaa dhinaca koonfurta oo Muqdisho agteeda areasan ka hadlayaa dhibaatada marka waa dhibaato weyn oo fara badan oo ha ahaato mid dhinacii maamulka ha ahaato mid ganacsatadii oo aan beerihii wadanka rabin inay ka gataan wax ama wax soo saarkii liita dhibaatooyin aad u fara badan jira laakiin midda ugu daran oo wadankeena haysta waxa weeye in beeraleydeennii aysan la tartami karin cuntooyinkii dibadda ka imaanayay sababtoo ah maalgashi fiican haddaan beerihii la gashan qiimaha ay ku soo saarayaan waa qiimo qaali ah marka haddaad ku soo saarto oo ninkii ganacsatadaana Brazil uu ka soo hori karo cunto raqiis ah adii markaa iibsanayay sax marka waxa weeye in
maal la geliyo oo beerihii lacag la geliyo beerihiina lacag waxa lagu geli karaa ardo aqoon leh inay joogto oo wax baratay marka waa in jaamacadihii aqoontooda kor loo qaadaa oo ardadii si fiican wax loo baraa oo aqoon tayo leh ardadii ay soo bartaan taas markii la helo ninkii ganacsatada ahaa ileen ujeedadiisu waa inuu lacag sameeyo sax laakiin arda aqoon leh oo si fiican wax u soo barata hadday soo baxdo dadkii ganacsatada ahaa oo maal gasho lahaana waa la helayaa oo wax soo saarkii kor u kacaya laakiin dhibaatada markaas kuu sii hartay oo jirta waxa weeye waa ammaankii iyo waddooyinkii oo xun oo iyadkiina u keenaya dadkii wax soo saari lahaa inay wax soo saaraan meeshii ay marin lahaayeen baanba jirinba meeshii aan marin lahaayeen aan jirin marka waxaa laga yaabaa ninkii inuu usoo go'do cunto aad u fara badan oo suuq la geyn karo laakiin waddadii uu soo mari lahaa ay meesha ka baxdo amaba qarashka lagu geenayo uu ka badan yahay qarashka lagu soo saaray uu ka badan yahay marka hadda dhibkana haystaa aqoon la'aan kaliya ma ahan waxaana haystaa waxyaabo aad u fara badan laakiin waxaan aaminsanahay haddii aqoontu jiri lahayd dhibaatooyinkaas wax badana laga bedeli lahaa midda kaloo na sii haysataa waxa weeye koonfurta kaliya ay hadda awoodda la saaraa meelo badan oo ka mid a Soomaaliya in beeraha laga soo saaro laakiin xaqiiqadii waxa weeye gobollada kale oo dhan oo waddanka wax waa laga soo saari karaa cuntooyin kala duwan oo badan ayaa laga soo saari karaa marka haddii gobolladaas ammaan xumo badanaa meelo badan aysan ka jirin ayaa jirta oo cuntooyin badan laga soo saari karo kuwaas marka maxaa noo diidaya in dadkii gobolladaas joogay ay beerihii bartaan oo awoodda saaraan oo ay wax ka soo saaraan wax noo diidaya ma laha kaliya markaas dhibaatada dhinacaas ka jirta waxa weeye waa aqoon la'aan dadka badanaa gobollada kala jooga oo iska ahaa xoolo dhaqato oon awoodda saari jirin inay wax soo saaraan marka dhinacaas inaan la iloobin oo awood la saaro oo gobollada kale wax laga soo saaro taas way mid hadda u baahan inaan awoodda saarno aad iyo aad waan gartay si fiican marka waxaan rabnaa sidoo kale inaan isbarbar dhigno dhaqaalaha laga sameeyo dunida horumartay xagga beeraha iyo annaga sidaan ugu dambeeyna dhinacaas bal wax macluumaad haddaad ka hayso inaad la wadaagto si ay dhiirigelin ugu noqoto dhaqaalaha laga sameyn karo markii la sheego qofka bini'aadamka inta badan waxaa dhacday inuu waxa ayaga uu ku hamiyo inuu waxa la dhaho barto ama uu raad raaco ma horta hadda Kenya oo kale dhaqaale fiican ayaa laga soo saaraa dadka beeraleyda dhaqaale fiican ayay ka soo saaraan oo waxay keenaan Yurub iyo waddanka gudihiisaba wax soo saar aan caadi ahayn soo saaraan nin marka Kenya oo kale waxa arkaysaa nin haysta wax ka yar nus hektar oo inta greenhouse ka samaysta qudaar aan caadi ahayn soo saara qaar waxa arkaysaa kule 60,000 aan ka faa'iidaa bishii oo Kenya money ah adiga $6,000 ah sababtoo ah dhulkaas yarka oo haystaan ayay wax uga soo saaraan qudaarta si maaragtay intensive ah oo saa'id ah yaanyadii oo kale kor ayaa loo dhisayaa greenhouse kulli waa arkeen dadka hadhow waxa lagu bedelayaa mid kale oo nooc kale ah faa'iido aad u fara badan ayaa laga soo saari karaa haddana yaanyada hadda suuqa taalla oo noocyada simisaanta la yiraahdo qofka haddii uu miro fiican soo qaato waqti fiican ayay ku ooli kartaa oo gobollada kale loo safri karo marka haddii qofku uu sameeyo waana ka waaweyn tahay midaan yartahay annagaynu beerno waa ka waaweyn tahay haa sababtoo ani markaan Soomaaliya tegey waa ku abuuray yaanyada waaweyn iyo midda yaryarba midda waaweyn oo fiican haddii aad keensato 20 iyo dhowr beri 30 beri ayay ooli kartaa adoon waxba qaboojiye gelin oo is isbedelin hadaa meel qabow aad dhigtid fridge hataa iyadoon u baahan meesha mideena kale ay dhowr maalin ay ku halaabayso صح عادي marka maadaama hadda xaaladda hadda jirta waddanka dad badan ay ku adag tahay inay dalagyada waaweyn soo saaraan sababtoo dalagyada waaweyn lacag weyn ku jira ha ahaato qamadi galley lacag far badan ku jirta laakiin waxay u baahan yihiin dhul weyn machinery la isticmaalo iyo qarash badan laakiin dadka beeraha ku cusub waxaan kula talin lahaa inay qudaarta awoodda saaraan sababtoo qudaartu wax maalin kasta loo baahan yahay meelo fiican la geey karo oo dad badan ay ka faa'iideysan karaan dadkuna u baahan yihiin tartanka dibadda nooga imaanaya oo qudaarta dibaddana la kaga keenayana wuu yaryahay oo qiimo ahaan badanaa laguma jabinayo
sida hadda qamadi soo saarto kale marka dhinacaas haddii awoodda la saaro weliba qof beeraha ku cusub waxaan aaminsanahay in lacag badan laga soo saari karo si fiican dalalka dibadda dhaqaalaha ay ka sameeyaan beeraha dalalka ugu horumarsan xagga beeraha adduunka bal ka waran ayaga kuwa horta wadamada reer galbeedka Mareykanka oo kale aad ay u soo saaraan beeraha oo dhinacii warshadaha hadda waxay ku dareen dhinaca beeraha oo cuntadoodii ayaa meel kasta la geeyaa sax laakiin wadamadaas waxay kaloo ugu sii dilayaan dawladooda ayaa taageera beeraleydii oo lacag siisiya marka lacagtii la siinayay iyo tii ayagu ay faa'iidayeen ayay waxay ku soo saaraan waxaan caadi ahayn laakiin wadamo waxaa jira aan lacag badanna la siin beeraleydii faa'iido badanna ay soo saaraan hadda wadamada sida Brazil oo kale India oo kale dawladdu waa taageertaa laakiin sida Yurub iyo Mareykanka kale looma taageero saasoo tahayna wax soo aad u fara badan ay soo saaraan hadda Kenya oo kale Ethiopia oo kale daris nala ah wax soo saarkooda aad u nooga horeeya laakiin tan sida ayaga ay haystaan beeraleydooda waxa weeye aqoontii iyo maaragtay intooda badan English ay yaqaaniin iyo sidoo kale hadda cudur oo kale markii uu yimaado oo dhibaato ku haya wadamada reer galbeedka sida Ingiriiska oo kale aqoon-yahanay u diraan cudurkii baaraan dokumentiyaal u sameeyaan dadkii beeraleyda loo gudbiya dhibaatadii qofkii waa fahansan laakiin dhibaatada waddankeena ka jirta waxa weeye beeraleydii dhibaatada haysata waa cuduradii mana yaqaaniin wax ka taageeraya oo dibadda oo waddankii ka baxsan oo imaanayo baaritaan ku sameynayaan ma jiraan marka dhibaatooyinka jiray ka mid ah adaa ku wata waxaan arkay mar ihsaa'iyo amaba statistics sheegayo in dalalka sida Mareykanka oo kale uu ku taageero hadda taageerada aad sheegaysa xagga beeraleyda $21 bilyan sanadkii China sidoo kale intaas in la mid ah Germany sidoo kale marka dad dawladahooda ay sida u taageeraan waa adag tahay in la tartamo laakiin haddana sidaas oo ay tahay in la isdiibo ma aha sababtoo anaga dhul beereed sanadkii dhan la beeri kara ayaan haysanaabaan yani isleeyahay horta isku barbardhig rasmi ma noqonayso taas sababtoo ah wadamadan reer galbeedka sababta u taageerayaan waxaa ka mid ah ninka Soomaaliya jooga ama Kenya jooga mushaarka uu qaadanayo markuu beerta ka shaqeynayo waa yar cuntada uu soo saarana waa raqiis laakiin ninka ka shaqeynaya beerta wadamada reer galbeedka shaqaalahaas lacagtoodu waa badan yahay marka maadaama shaqaalihii lacagtoodu badan yahay cuntadii ay soo saaraan qiimo ahaan kulama tartami karaan midii Kenya laga soo saaray oo ninkii lacag raqiis u qaatay sababtaas darteed ay marka waxay u siiyaan taageero si u noqdaan competitive ay la tartami karaan India iyo China cuntada raqiiska oo mushaarka shaqaalaha dadka lacagta yar qaadanaya ay soo saariyeen si ula tartamaan sababtaas u taageeraan marka anaga maadaama qarashkeena iyo shaqaalaheena uu raqiis yahay waa la tartami karnaa inaan cunto raqiis soo saarno haddii aan qalabkii haysano laakiin aan qalabkii haysan lama tartami karno laakiin qiimaha lacagtaas la siiyaa nooma diidayso in haddii anaga aan lacagna la siin inaan wax soo saari karin kama dhigna صح أديان أوكي بل هذا بحلي دولة يجري وهاي هراته وحساسات beeraha sidoo ahaa ay hadeertaan oo dawladnimo soo kabanaysa xoogaa noocan ma ay jirto bal ka warna arinta ayada horta xilligaas ma xasuusto dawladdu jirtay laakiin waxyaabo badan aan ka akhriyay dawladda Soomaaliya markaas awoodda waxay saari jirtay inay dad aqoon-yahanada ayaga laftigooda keenaan 70-meeyadii waxa la bilaabay waliba abaarihii markay dhaceen 74gii meelahaas markay dhaceen abaartii ay dawladda Soomaaliya serious wax u bilowday inay ogaato ilaa dadkii markii la soo raro koonfurta loo soo raro ee ciidii la baaray si loo ogaado ciidaha fiican oo dadka la deji karo iyadoo markaas la saaray oo dhaqaalihii dhinacii baarihi uu kor u socdo 80-meeyadii ayay ahayd marka ugu fiicneed Soomaaliya ee wax soo saarka dhinaca beeraha ugu fiicneed markaas wixii ka dambeeyay hoos ay marka waxaan akhrinayay waraaq ama paper laga qoray arintaas in Soomaaliya 50 years ka hor iyo hadda now xilliga hadda joogo hadda ay liidataa dhinaca wax soo saarka beeraha iyo waagaas marka baaritaan badan ayaa la sameey jiray waxyaabo badan ayaa maaragtay practice ay ardaydu sameey jireen waxyaabo badan oo hadda aan ka dhicin jaamacadaha waddanka sababtoo ah waxyaabahaas waxaa keenaya qaar badan waxaa keenaya amaan xumo oo in beerihii la tago waxyaabo badan dhibaatooyin badan ayaa jira marka report kale oo FAO ay soo saartay Soomaaliya 80 iyo intaas milyan ay 80-meeyadii cunto ah ay soo dhoofsan jirtay meesha hadda ay yiraahdeen 1 billion ka badan ay soo dhoofsadaan Soomaaliya
marka taas waxay ku tusaysaa inaga dhanba waxaan ku xirannahaba boqolkiiba weliba waxay yidhahdeen 78 cuntada oo cerealka iyo cuntooyinka la cuno dibadaan ka keensanaa waddanka hadda aan joogo kale markii la fiiriyo boqolkiiba 60 cuntada ay cunaan ayagaa soo saara laakiin saasoo tahay intaasoo cuntaana way dhoofiyaan annaga boqolkiiba 80 aan soo dhoofsanaa cuntada aan cunno dhaqaalaheenuna waa liitaan marka weliba waxaan fiiriyey inaan u qaybiyaan dabca lacagtaas tiradeeda qof kasta waxaa kusoo aadaysaa u malaynaya 300 iyo intaas qof kastoo Soomaaliya 300 ama $400 oo cunto ah inuu dibadda ka soo iibsado marka lacagtaas haddii haaf ka mid ah haddii ay ku bixi lahayd beeraleydeena ka war cajiib isbeddel weyn waddanka dhici lahaa si fiican intaas daan ku ekeenno ka hadalka mawduuca beeraha iyo waddanka bal ka waran ardayga markuu kasoo qalin jibiyey kulliyadda beeraha furaska u bannaan ama ha ahaado beeraha guud ha barto ama mid ka mid ah takhasusaadkeeda ha barto furaska shaqada ee uu ka heli karo suuqa shaqada bal ka waran intaas dalka gudihiisa iyo dibadda maadaama dalkan aad baaris ku samaysa horta Soomaaliya waan tegey wayna jiraan dad ganacsato ah oo beeraha maalgashada oo dad aqoon la raadinaya laakiin waxaan u malaynayaa kulley dhibaatada waddanka ka jirta waxa weeye ardadii jaamacadaha ka soo baxay qaar badan oo ka mid ah shaqo la'aan ayaa ku dhacda oo dhinaca beerihii ma aadaan sababo badan ayaa keenaya mid horta waxa weeye ma jiraan meel oo shaqooyinka la soo geliyo oo dadka beeraleyda ah shaqooyinka ay soo geliyaan oo ardaygii jaamacadda ka soo baxo aqoonta lahaa iyo qofkii beeraleyda ah oo dad shaqaalaha la shaqeeya u baahan meelay iskala xiriiraan ma lahan oo halkaas iska raadiyaan midda kale dhibaatada jirta waxa weeye in arda badan laga yaabo inaysan rabin inay aadaan qaybaha fogfog oo ka mid ah sababtoo ah dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah qaar waxaa laga yaabaa imaan xumo inay tahay qaar waxaa laga yaabaa inay beeraleydii aysan bixi karin qarash ku filan ama qiimo ku filan ardaydii oo shaqaalaha ahayd oo rabtay inay la shaqeeyaan laakiin aniga inta aan joogay afgooyo iyo kale dhulkaasoo kale waan arkay arda badan oo jaamacadaha ka timid oo beeraleyda la shaqeysa oo cusub oo soo qalin jabisay marka baahidii waa jirtaa beeraleydiina aad ayay waxay ugu baahan yihiin dad wax yaqaana oo u yimaada oo jaamacadaha ka soo baxay oo la shaqeeya ardadiina waa u baahan yihiin laakiin dhibaatada ka jirta oo ugu weyn waxaan u malaynayaa inay tahay xiriir ma jiro sidee isula shaqayn karaan amaba loo fududayn karaa xiriirka ka dhexeeyo beeraleyda iyo ardada amaba dadka wax bartay cilmiga beeraha bartay midda kale maxaa يعني علاقة كده حين كده بحين نقول كرتا يعني سيدا يسولا شقين كرا لبدل وفائدي كرا يعني أدونك سيدا يسولا شقيا وضن كانوا كله هدا في ريسيت سنة كستا حل كمدة سنة كوبا سنة كلا سنة صدح مركز وجامعة يعني سنة كي حل فير القبطات كده صح أو جامعة أي فير قبطان ضد كشقالها الدونية أي أسوي ماذا جامعة دي وأرضي ورئيسته مركا بيرليدي iyo jaamacadii waxa laga rabaa beeraleyda ardada inay isku xiraan oo u qabtaan xilli la isku yimaado iyo dadka ganacsatada xataa magaalada joogo beera leh sababtoo ah waxaan ogaaday dad badan oo ganacsato ah oo waddanka jooga beera ay leeyihiin beerahaasna wax dhexaa laguma qabto dhulkii waa iibsadeen laakiin waxay ku qabtaan ma lahan sababtoo dad shaqaala oo ka shaqeeya wax ka soo saaray ay u baahan yihiin marka jaamacadii ayaa waxa laga rabaa inay feer qabtaan oo ay dadkii ganacsatada ah ugu wacaan maalin hebel xayisiin sameeyaan ardada jaamacadda baratay ha ahaato beeraha ha ahaato engineering ha ahaato wax walba kulli ana aqoontii in laga qabto waa laga yaabaa in laga qabto aan maaragtay wax la sameeyo aan hadda sheegay laakiin kulli ogaantii ma laga qabto marka in feerkaas la sameeyo jaamacaddii ay isugu yimaadaan beeraleydii iyo ardadii ka bacdina xiriir saas lagu sameeyo oo dadkii beeraleyda ah u baahnaa ardadii aqoonta lahayd ay kala faa'iideystaan marka taas daan la sameyn waa muhiim jaamacadu inay taas sameeyaan okay arday markuu qalin jibiyo kadib marka sidoo dadka beeraleyda oo la shaqeyn kara qarash kase salaana qofka door yani beeraleyda markuu la shaqeynayo maaga qarash siinayo mise asaga hadhoodi kula heshiinayo wax soo saarkooda inuu wax ka qaato qaab noocaay isula shaqeeyaan adduunka dadka bartay cilmiga beeraha ee professionalka iyo dadka beeraleyda horta ma Soomaaliya mise adduunyada kale haddaan Soomaaliya ka hadalno adduunyada kale waan fiirina may adduunyada kale shaqaale baa noqonaysaa hadeer anoo kale maaragtay iyo dadka ardada aan jaamacadda kasoo wada baxnoo kale
defro kale dowladda kale loo shaqeeyaa hay'adda beeraha loo shaqeeyaa inay horumariyaan beeraha kambaniyaal waxaa jooga wadamadan oo ka shaqeeya sidii beeraleyda u horumari lahaayeen oo beeraleydoo kale ay wax u samaynayaan research iyo baaritaan beeraley kasta oo waddankan jooga lacag u bixinayaa bil kasta hay'addaas shaqaynaysa lacag yar u bixinayaa baaritaan u samaynaysa ardadii marka jaamacada ka baxay qaar waxay aadayaan kambaniyaashaas si ay beeraleyda ugu soo sameeyaan research qaar waxay aadaan kambaniyaasha soo saara nafaqooyinka qaar waxay sameeyaan oo la shaqeeyaan kuwa agronomistiyaasha ah qaar kuwa maaragtay xoolo dhaqatada ah shaqooyinkaas goonida ayay kala raadsadaan waddankaana dadka beeraha ka shaqeeya waa yar yihiin sababtoo ah 70% waddankan dhulkiisu inkastoo beero uu yahay haddana 2% kaliya dadka waddanka ayaa ka shaqeeya beeraha 400,000 oo qof camal kaliya beeraha ka shaqeeya 70% dhulka waddankuna waa beero sababtaas waxaa keenaysa waxaa la isticmaalaa machinery beer oo 500 hektar ayaa wax ka shaqeynaysa 3 qof oo kale sababtoo machinery la isticmaalaya automatic wixii oo dhan waa automated marka Soomaaliya kale waxaa laga yaabaa beer oo 100 hektar in loo baahan yahay 40 qof inay ka shaqeyso marka shaqadii meeshii way taalaa laakiin waxyaabaha kale oo ardadu ay sameyn karaan haddii ay rabaan inay khibradooda dhisaan waxaa ka mid ah dad badan oo beeraley ah oo dhulkii haysta oo waraabkii diyaar u yahay oo machinery haysta qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adagtahay mushaar rasmi inay bixiyaan bil kasta waxyaabaha marka ardadu ay sameyn karaan waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo Soomaaliya kala qaybsiyaa jira camal magac ay leedahay laakiin waa iloob waa la share gareynayaa beertii waxaa lagu siinayaa 10 hektar 50% adaa iskale wixii ka soo baxa 50na ninkii dhulka iska lahaa ayaa iska leh isaga wuxuu siinayaa machinery wuu ku falayaa beertii adiga waxaa laga rabaa inaad waardiyeyso buufisada u baahato aad buufiso qarashkii markii laga jarana hadhow labadiina kala qaybsanaysiin beeraley badan aysan kalsooni fiican haysan oo ay taa ku sameeyaan waxaa fiican in ardadu ay saa ku shaqeeyaan adigiina khibrad fiican ayaa ku helaysaa oo markii aad jaamacadda wax ka baranaysid iyo markii aad real wixii u sameynaysid isma lahan khibrad fiican ku helaya si fiican intaasayt waxaan uga gudbaynaa waxaan filayaa inaan si fiican u ka wargareynay kulliyadda beeraha shaqooyinkeeda iyo waliba dalka iyo dibadda inaan isba bandhignay hadda waxaan u geli doonaa maadaama aan janalka kusoo bandhigay inaan maxaa la dhahaa waraysigan qaban doonaa ama kulankan su'aalihii ay dadka soo weydiiyeen insha allahu tacaala ayaan u geli doonaa waxaan ku bilaabeynaa su-aasha koowaad wuxuu leeyahay Axmed Cumar haddii cuntooyinka dibadda la inooga soo dhoofiyo la mamnuuco beeraha dalkeena mayna kaafin karaan adigoo og ama eegaya in beeraha aynan bacrimisnayn waraabkoodana uu adag yahay bal fikir ka dhiibo halka su'aal kale uu sii raacinayaa oo ah dalalka heer sare ka gaaray beeraha sidee bay ku gaareen waa laba su'aal aad u muhiim u ah su'aasha koobaad horta kulli haddii xaqiiqada la eego waa adag tahay in maaragtay waa adag tahay in la yiraahdo cuntooyinka dibadda nooga yimaada hal mamnuuco sababtoo ah deertan waxaan sheegnay 78% FAO inay sheegtay 80 ba iska dheh 80% ba iska dheh in cuntada aan cunaa in dibadda nooga timaado waliba dadka qaar waxay ugu raadeen FAO wayba soo yareysaba waaba ka badan tahay 80% marka haddii marka ay taas dhacdo dadkii ay diideen cuntadii waddanka dabiiciyanka noogu soo bixi jiray hadda masagada dadka qaar Soomaalida magacyo kale u yaqaaniina u maleynaya masagada oo kale badanaa xoolaha dad badan siiyaan maba cunaanba waana cunto aad u wanaagsan haddii la tumo daqiiq laga dhigo burka lagu darsado waxaa badan loo isticmaali karaa dadkii ma cunaan badanaa xoolaha la siiya marka bariis iyo baasta rabnaa bariis iyo baastana waa ognahay waddankeena kama baxdo marka taas kulli mid shaqeynaysa ma aha su'aasha labaad marka waxay ahayd wadamada see ku gaareen horumar dhinaca beeraha soo ahayn waxa la yiraahdo agricultural revolution kan wuxuu bilowda u maleynaya waliba waddankan Britain ugu horeeyay wadamada loo eeneeyo inay bilaabeen wuxuuna bilowday 1800 ilaa 1700 iyo xogaagii aad u bilowday saddex shay ayaa u maleynaya inay bedeleen si taas u dhacdo horta midda koowaad waxay ahayd waagi hore waxay sameeyay jireen inay dhulka
ilaa waxay ogaadeen in dhulka markii la abuuro nafaqadii ay ka dhammaanayso haddaa halgeed ku celceliso mar kasta marka waxay samayn jireen waxa la yidhaha rotation fallow ay samayn jireen fallow periodkaas marka wuxuu ahaa 3 markii loo qaybiyo dhulkaan qayb ka mid ah fallow looga tagi jiray waxba laguma abuuri jirin marka qaar 4 markii loo qaybiyo qayb lama abuuri jirin si nafaqadu ay ugu soo noqoto waa la deey jiray dhulkaas wax soo saarkoodu marka wuu liitay dhibaatadaas soo jirta ka bacdi ayaa waxay bilaabeen waxa la yiraahdo crop rotation waxay ogaadeen haddii dalagyada ay kala wareejiyaan in dhulkiina nafaqa ay soo galayso aynan u baahnayn dhul badan inaysan isticmaalin marka waxay sameeyeen inay maaragtay xilliga winterka ahaa ay xoolihii ay u abuuraan cunto ay cunaan haddana inay abuuraan cuntooyin ciidda nafaqa gelisa sida digirtoo kale cuntooyinkaasoo ciidda nafaqa nitrogen geliya inay abuuraan ka bacdi taas waxay keentay inuu wax soo saarkii cirka aado sababtoo dhul aan la isticmaali jirin ayaa la isticmaalay midda saddexaad oo ay sameeyeenna waxay ahayd inay dhulka ulu iska furaa jira sida Soomaaliya oo kale oo common u ahaa dadku dhan isla isticmaali jiray community dhul u ahaa sida hadda Soomaaliya dhulka la isla daaqo kale waxa la yiraahdaa taas faa'iido ma lahan waa loo gooyay dhulkii dad lacag leh aa dhulkii la wada wareegay dadkii masaakiinta waxa la yiraahdaa shaqaale noqdo ama magaalada aada marka ninkii markuu dhulku yeeshay uu soo xirtay maalgashi fiican u geliyay taasna waxay kor u qaaday wax soo saarkii hal mid oo kale ay sameeyeen waxay ahayd cuntooyinka dibadda laga keeni jiray inay joojiyeen ay mamnuuceen oo yiraahdeen wax dibadda laga keeni kara ma laha marka intaas markii beerihii la isugu daray wax soo saarkii kor ayuu aaday waxa taas soo raacay marka inay isticmaaleen farm machinery qalabka beeraha lagu filayay inay bilaabeen oo ay soo saareen ka bacdina waxa la sameeyay in lagu kala takhasusay oo nina xoolaha bas uu ka shaqeeyay nina uu dalagyadii soo saaray marka waxyaabaha ugu muhiimsan ay sameeyeen waa kuwaas annagana marka taas waxaan ka baran karnaa hadaan Soomaali nahay waa dhulkan iska furan inaan ka faa'iideysano in machinery iyo qalab aan isticmaalno waxyaabahaas aan ka baran karnaa iyo inaan isticmaalno ciidda barano oo ciidda fahano maxaa u keeni kara in ciiddu nafaqadu ka baaba'do maxaa si ciidda nafaqa geli kara fahmiyo jaamac waxay leedahay waxaa jira qolooyin hay'adaha ama NGO ah oo badan oo dalka keena seedka beeraha oo sheegay inay dadka ka caawinayaan tabcashada beeraha seedadka marka koowaad degdeg ayay ku soo baxaan laakiin marka dambe dhulku waxba kama baxaan oo dhulku wuxuu nabaad guuraa arrintaas ayada maxaa ka jiro maxaase ka aqoon-yahan ahaan oo dadka aqoonta cilmiga beeraha bartay idinkaga qorshaysa horta dhibaatadan oo seedka wuu jiraa dhibaatadeeda laakiin dhibaatadaas kulli ani intaan ogahay ma ahan in seedkii markii la abuuro inuu ciiddii halaynayo badana ma aha waxa weeye seedka markii la soo saarayo horta seed kasta kabaniga soo saara wadan uu soo saaraa iyo dhul adduunka dhan uma soo saaro sababtoo adduunyadu isku cimilo ma ahan seedka Talyaaniga laga soo saaray Soomaaliya inuu isku haboonayna laga yaabaa sababtoo cimilada Talyaaniga ayaa loo soo saaray seedka markii la soo saarayo hybrid la yiraahdana waxa lagu bixiyaa intaasoo sano waqti badan lagu bixiyaa marka seedkaas marka waxa la baray in nafaqa fiican la siiyo biyo fiican la siiyo cimilo noocaas heerkul noocaas lagu koriyo waxaas oo dhan ayaa la soo sameeyay marka hadii aad geyso marka cimilo aan ku haboonayn iyo ciid biyo fiican aysan ku jirin hadhow seedkii sidii la rabay ma noqonayo waxa kale oo jira in seedadkaas hybrid la yiraahdo qaaliya la gadaa hadda Uganda oo kale waa wadan dawlad leh dhibaatada ugu daran oo haysatana waxa weeye waa seedkaas bugta waana aragnay waxa bugta wadamada Afrikaanka aad ayaa loo geeyay marka seedka Soomaaliya la geenayo waxa laga yaabaa inay ku jiraan qaar badan oo bug ah oo meesha seedkii hybridka oo qatarta ahaa oo sida fiican u korayay oo quality leh ay sugeysay waxa laga yaabaa inuu noqdo mid aan quality lahayn oo nin intuu beertiisa caadiga ka soo guray uu koomba ku soo geliyay oo kaaga dhigay seedkii qaaliga ahaa marka ha noqoto daawadii ha noqoto fertilizerada marka qaar ha noqoto seedkii wixii oo dhan buga ku jira marka hadii aan lagu keeno marka seed bug ah oo wixii uu ku qoraa oo san ahayn hadii waxa laga yaabaa midkii adigu ku yaalay gurigaaga inuu ka quality fiicnaado sababtoo waa liita marka ciladu ma ahana u malaynaya inay tahay seedka ciidii halaynayeen
seed aan cimiladeennana ku habboonayn ama bug ah ayaa laga yaabaa in loo keeno beeraleydiina sidii ay rabaan aysan ka helin haddii xataa uuna seedkii fiican yahayna waxaa laga yaabaa sidii la rabay dadku inaysan u maamulin oo markaas faa'iidadii la raban aan laga helin marka sidee arrintaas lagu horumarin karaa sidee looga hortegi karaa macnaha maxay samayn karaan beeraleyda oo kale seed markay soo gataa qofka siduu ku kala ogaan karaa kan bugtay kan aan bugtahayn sidaasoo kale siduu yani oola tacaamuli karaa ka hadda quality fiican leh aad sheegtay adig horta waa adag tahay arrintaas sababtoo ah wadamo hadda sida Ugandado kale aan sheegay aa dhibaato ku qaba oo waxba ka qaadila dadkan bugta keenaya galeydoo kale waxaa jira mid oo hybrid ah oo la soo sameeyay waxay sameynayaan marka nin beeraley u tagayaan galeydii ka soo qaadanayaan marka galeyda waxaa jirta oo hybridka ah daawa la soo mariyaa si markii ciidda la geliyo oo sacayaanku u cunin waxay barteen marka daawo binki ah oo taas u eg inta soo qaadaan oo ninkii galeyda caadiga ka soo gurtaan oo mariyaan oo tii kale ku midab ka dhigaan oo bacdii taas laga shuba soo qaataan oo ku shubaan oo ku xiraan ay dadka iibiyaan marka hadda Kenya oo kale waxay leeyihiin wasaarad u goori ah oo arrintaas aad u baarta oo la dagaalanta marka way adag tahay marka in arrintaas Soomaaliya hadda nin beeraley ah uu wax ka qabto kaliya in qofku wuxuu sameyn karaa inuu markuu seed soo gato magaciisa uu qorto nooca uu yahay una fiiriyo wax soo saarkiisa una talageliyo qof cilmiga beeraha bartay salaam hadhow marka haddii uu arko seedkan inuu wax fiican ka faa'iiday oo seed fiican uu yahay had iska cishado sanadka soo socdana isla nuuci haddii laakiin uu arko sida ku qoran sababtoo seed kasta waxa ku qoran percentage-ka inta soo baxaysa qaar 80% ku qoran qaar 75 ku qoran qaar 90 ku qoran intii ay sheegeen ma soo wada baxeen sidii la rabay adiga hadii lagu yiri marka 1 centimeter ciidda ka kormari sidii yeel nidaamkii ku qoran ayaka raac sidii marka aad rabtay ma noqdo hadduu san noqon iska bedel waxay leedahay aaminakin sidoo kale assalaamu calaykum walaal waad mahadsantahay aniga aad ayaan u jeclahay wax beerashada haddana ma ulihi aqoon 6 bilood oo course ama igu filan tahay waa kugu filan tahay waliba ana dadka waxaan kula talin lahaa xataa haddii YouTube fiirsadaan videos oo ka hadlaya beeraha inay samayn karaan waliba dadka waxaa fiican inay ka bilaabaan gurigooda waxaa ka bilowdaa yaanyada aad cunto kale gurigaaga inta miraha kala soo baxdid jardiinka ku abuur haddii aad xataa gurigu shabiito yahay caagada soo qaado duleel hoos uga samee ciid dhoobe iyo ciid bacaada isku qas ku shub duleelo u samee halkaas ku abuur ku baro gurigaaga adoo jooga beer ka dhex dhig qofku markuu intaas sameeyo kabacdi niyada u dhismaysa kalsooni uu yeelanayaa inuu beer weyn aado marka horta waa inuu qofka asoo gurigiisa jooga oo isku dayaa inuu qudaar gurigiisa ka soo saaro kabacdi insha Allah wuu samayn karaa wadamada reer galbeedka oo kale qof kasta gurigiisa beeraha ugu taalo wuxuu ka soo saaraa inta badan wadanka aniga aan joogo xitaa waa wadan saxare ah macnaha waxa dadku beer dhulkiisa caadiga waxba ma ka soo baxayaan marka waxaan arkay guryaha waxay sameeyaan dadka qadariinta guryahooda waxay ku beeraan yaanyada iyo nacnaaca oo kale bahalkan la yiraahdo ama mintiga oo kale iyo waxyaabaha qudaarta ay u baahan yihiin oo dhan waxay ku beerayaan gurigooda waxayna soo gadanayaan carradaas aad sheegtay waxyaabahaas wayna soo baxdaa runtii biyo bay siinayaan iyo ciidaas bay soo gadanayaan waa beerayaan khalaas ana qofka cilmi beer u baahan inuu wax beerto runtii ma baahna qofka inuu hadduu qofku rabo inuu wax beerto uma baahna inuu jaamacad aado qasab ma aha waxaa arkaysaa dad oo aan weligood jaamacad tegin beeraha ay soo saaraan iyo waxa ay soo saaraan aysan caadi ahayn marka qofku gurigiisa ha ku tijaabiyo qarash asagoo gelin beer aan aadin uu ka soo saari karaa Surur Media wuxuu leeyahay mahadsanid waxaan weydiin lahaa waxaan rabaa inaan beer cusub asaaso oo greenhouse ah waxaan joogaa Puntland casharada ku saabsan greenhouse-ka waan dhageystay aad channelkaaga Farm Soomaaliya ku soo gudbiso laakiin inaan ku dhiirrado baa wali iga dhiman xagga aqoonta oo aan u leeyahay beeraha awgeed waxaan raadiyay course aan dheerayn oo beeraha ku saabsan khaas ahaan greenhouse balse wali ma helin maxaad igula talin lahayd mahadsanid ma sii su'aashiis waxaan kula talin lahaa walaalkaas inuu sida hadda aan gabadha kula talino kale inuu sameeyo inuu xaafadiisa ka bilaabo ku dhiiro horta guriga ka bilow niyadiisa kugu dhisanto ileen ma ogtahay beer haddaad samayso wax ku qasbantahay waa shaqo waa inaad u safartaa laakiin gurigaaga marka qadaynayso ayaad biyo ku shubaysaa ama marka cashaynayso marka inaad horta ku dhiirato inaad wax soo saarto bilow koorsooyin insha Allah waxaan rajaynayaa greenhouse-ka ku saabsan iyo waxyaabaha kalena inaan insha Allah tacaala oo habaysan oo badan
waqtiga xoogaa ciriri inaan kuwaas soo sameeyaan waa rajeynaya haddii ilaahay yiraahdo insha Allah oo dadku ay ka faa'iideysan doonaan laakiin uma baahna inaad isku dhibto kan Khalid Vlogs wuxuu leeyahay mahadsanid ustaad magacaygu waa Khalid bartax cilmiga adeega bulshada su'aashaydu waxa weeye greenhouse-ka stepska uu maro guud ahaan kharashka ku bax greenhouse-ka horta waa waxa aad ka dhigatid sida aad ka dhigatid weey ma fahantay صح kulley dabcan wadamadan reer galbeedka lacag badan ku baxda sababtoo ay ku xilli qabow bay leeyihiin marka muraayaday ka dhigaan ama bac adag ay ku wareejiyaan laakiin Soomaaliya hadaa rabtid waxa isticmaali kartaa shabaq kaliya ayaa isticmaali kartaa shabaq hadii marka Soomaaliya lagu iibiyo inta iibsato ayaad adiga kaliya gacantaada ku dhisan kartaa hadda walaal Turkiga joogo kalaan weydiiyay wuxuu ugu yiri halkii metro square waxa la gadaa $1 ka yar taas roosiya ha Kenya waan weydiiyay waxa la igu yiri halkii metro square adiga $1 iyo bar meelahaas wadanka gudihiisa wallahi kama warqabo kulli waa joogan shirkado Soomaaliya oo sameeya barnaamijkaas laakiin xiriirnaga ma dhaxeeyo marka ma hubo inta ay taaj gareeyaan laakiin waxaan ka hadlayaa maadaama qof uu ku cusub yahay inuu asagu dhisan karo ama walaalahaasta ka soo gato shabaqa kaliya tiirar taagto inuu dhisto bacda markii la dhisayo xoogaa waa ka hawl badanta sababtoo ila bacda biyaha galaya greenhouse ku soo dumaya laakiin shabaqa uma baahnid shabaqa kaliya waxa sameynaysa qorraxdiina waa ka yareynaysa biyihii iyo waraabkii ku shubaysa waa yaraanaysa cayayaankii ku soo galiyay cudurradiina waa yaraanayaan taasoo kale marka waxa sameey kartaa inaad 4x4 mid ah gurigaaga ku bilow shabaqa soo wareeji yaanyadii iyo qudaarihii kala soo saar markaas waxa ku dhismaysa kalsooni inaad mid weyn ah ku dhisato qalabka asaaris $500 kama badna umaleynaa 10 lagu dhifto 20 haduu yahay waxa dhanba dhul suuqay laakiin markaas waxa ku sii dhiman tiirarkii iyo alwaaxdii iyo qalabkii ku taagi lahayd iyo dhismihii ku dhiman laakiin shabaqa la saarayo kale waxa laga yaabaa $200 ayuu kugu noqonayaa ina saaratid laakiin dabcan markaasna waxa u baahan tahay dadkaas meelaha jooga dibadda inaad taqaanid oo ay ku soo diri karaan hadda wadankan oo kale isagana waa lagu iibiyaa laakiin xoogaa waa ka qaalisan yahay kuwa wadamadaas kale waxa halka door la gadayo shabaqi oo kale waa Turkiga halka $1 kale amal waxa la gadayo waa Turkiga bacda xataa waa sidoo kale bacda markuu yahay xataa Kenya oo kale sidoo kale waxa la gadayo $1 iyo bacda laakiin waxaan kula talinayaa walaalaha oo wadanka jooga haday qiimo fiican ay dadku ku sii karaan inay ku siiyaan iyaguna ay ka iibsadaan dadkii wadanka joogay si dhaqaalihiina anaga noogu dhex dhaqdo aadiya Shardila bro waxa uu leeyahay ustaad waxa iga gaarsiisaa ustaadka oo tixgelinaya hamigayga waxaan rabaa inaan cilmiga beeraha barto dhowr qaybood baana loo qaybiyaa marka keeba ugu fiican inaan barto mahadsan horta Soomaaliya oo kale hadda xilliga la joogo dhinac kasto aad barato isbedel weyn ayaa wadan keeni karta haday noqoto dhinaca horticulture oo qudaarta inaad barato iyo soo saarkooda iyo hadii ay noqoto dhinaca agriculture oo qamadiga kale galeyda kale cuntooyinkaas waa weyn inaad barato ayadana waa faa'iido weyn dhinacii xoolahana aad ay muhiim u tahay inaad baratid oo iyadana faa'iido badan ay leedahay wadanka hadda Soomaaliya oo kale iyo wadamadan oo kale hadda hadii noqoto kiilada hilibka waxa laga yaabaa in Soomaaliya ama qaalisinta ama isku qiimo yihiin wadankan oo kale marka dhinaca xoolaha faa'iido weyn ayaa ku jirta waliba waxa wadanka ka maqan oo aan la sameyn waa in xoolihii iyo beerihii la isku qaso marka dhinac kasta oo kamid oo soo barato wax ceeba ma lahan faa'iido badan ay leedahay kaliya waxay ku xiran tahay noocaadi ah xiisisid iyo meesha aad joogtid koonfurta kale haduu walaalku joogo beerihii agriculture guud soo baran karaa hadda wuxuu isku dayayaa beer intuu samaysto inuu xoolihii iyo isku qaso iyo beerihii markaas wuxuu samaynayaa hadii galey uu abuuro kale qashinka ka soo hara xoolihiisa cunaya galeydiina uu iibinaya beertiina waxa la samaynayaa dhowr qaybood oo loo kala qaybinayaa si qaybna xoolaha loogu hayo qaybna loogu hayo dalagyadii looga soo saaro oo la isku celceliyo marka dhinac ceeb lama jiro qaybta kale oo iyadana muhiimka ah oo hore u sheegnana waa qaybta machinery-ga qalabka machinery-ga beeraha qofka inuu soo barto aad ay muhiim u tahay taas waliba taas waxa aaminsan qofka haduu practical u soo sameeyo oo wadamada tago oo machinery iyo sida loo isticmaalo sida falitaanka loo sameeyo markii cilad ay ku jirto bixi kara ciladii ka saari kara dhinacaas qofkii soo bartana aad ay muhiim u tahay aad loogu baahan yahay waa dhinaca aan kaliidana u baahanahay qof soo barta
su-aasha ugu dambayso kama gaarna su-aalaha kale, su-aalo badan bay dadka soo gudbiyeen. waxa weeyaan waad mahadsan tahay ustaad. su-aasha koowaad, beerta ugu wanaagsan carra ahaan, iyo su-aasha labaad oo ah carrada dhoobeyda waxay ku wanaagsan tahay. horta videos aan ka sameeyay taas oo dhoobeyda iyo ciidaha kale oo bacaadka loo yaqaano, labadaba videos aan ka sameeyay Farm Soomaaliya oo ka daawo kartaa. laakiin ciidda dhoobeyda ah faa'iidooyin ay leedahay oo ay midda kale uga fiican tahay. faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah inay nafaqadii ka cesho og tahay, inay biyihii ka cesho og tahay, oodan markas inay biyo ku shubta aad u baahnayn. waxyaaba uga fiicanta taasaa ka mid ah. laakiin videogaas si fiican ugu sharxa qofkii aad u xiiseynaya dhinacaas aad uga fiirsan karaa. laakiin waxyaabaha ay ku liidato waxaa ka mid ah in xilli kasta ayada aan laga faa'iidaysan karin oo qalabkii machinery aada geli karin, sababtoo ah haddii roob u yimaado oo qoydo dhiiqay noqonaysaa, inaa ciiddii halayso ayay noqonaysaa ama aadan gelin. ciidda bacaadka ah laakiin wadamada qaar aad ayaa looga jecel yahay, sababtoo ah haddaada biyo ka walwalayn nafaqadana si qiyaasa ayaa loogu shubayaa. hadba dalagii intuu baahan yahay lagu shubayaa, biyahana waa loo qiyaasaya, weliba drip irrigation haddii la isticmaalo. laakiin ayadu waxay ku fiican tahay xilligaa rabtaa geli, markaa rabtaa falaysaa, markaa rabtaa ka shaqaynaysaa, saa rabtaa u maamulaysaa. dhoobeyda sidaas ma aha miya? dhoobeyda ma ahan, because haddii qoyan tahay oo xilli roobaad ay tahay way adag tahay. midda kale cilada kale leedahay ayada waxaa ka mid ah biyaha dhex fariisanaya haddii roob zaa'id u yimaado oo dalagii aarya la'aana ku dhacaysa. marka labada ciidoodba faa'iido aad u fara badan ay leeyihiin. laakiin haddaan biyo la haysan dhoobeydaa fiican. haddii biyo kugu yar yihiin nafaqadiina qaabka u maamulaysa aadan aqoon, dhoobeydaa fiican, sababtoo ah iyada qofkan si fiican wax u fahansanayn aad ay ugu sahlaysaa maadaama biyihii si hore ka dhammaanayn. aad iyo aad si fiican. intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa su-aalihii dadka ayna soo weydiiyeen waanan ka cudur daaranaynaa dadkii aanan su-aalahooda soo gudbinin waqtiga oo kooban awgeed. ustaadkan waa u mahad celinaynaa runtii sharaxaad badan oo ku filan buu siiyaan isleeyahay. su-aalihiina jawaabahooda waxaad ka heli kartaan muuqaalka intuu socday. waxaan kusoo gunaanadaynaa intaanan dhammeynin. waxaan leedahay youtube-ka channel la yidhaahdo Farm Soomaaliya. waa magac runtii aad ii soo jiitay. videogii muuqaalkii beeraha ku saabsanaa markaan arkay yaan arkay, marka aad baan u daawaday. waxaan xataa yani ku dhiirigelinayaa dhalinyarada engineeringa dhismaha baratay inay channelka engineerka amaba ustaadka ay fiiriyaan oo ay ka warqabaan, sababtoo ah wuxuu muhiim u yahay carrada iyo noocyadeeda kala duwan iyo culeysyada siday u kala qaadi karta ka engineer ahaan waad u baahan tahay, kamana maarmo. marka ustaad Albaashi channelkiisa faa'iidooyin badan baa ardada dhismaha barata sidoo kale ugu jiro, marka waxaan ku dhiirigelinayaa inay ayagana ka war doonaan. marka bal nooga waran channelkan youtube-ka, fikradda waxa kugu dhaliyay, goortaad bilowday, waxa aad ku haminaysa, meesha aad rabto inaad gaarsiiso? horta channelkan waxa ugu dhaliyay hadda ka horan walaalkalna waa u sheegay 2011 abaarihii Soomaaliya markay dhaceen, anoo bus driver ah ayaan waxaan go'aansaday inaan beeraha barto, sababtoo ah dhibaatada ka dhacday waddankeena darteed. go'aankaygu marka oo maalinkaas laga soo bilaabo wuxuu ahaa inaan isku dayo inaan wixii aan barto aan dadkiina u gudbiyo, waddankeena aan ku noqdo, inkastoo hadda weli aan qurbaha joogo. insha Allah laakiin qorshaha igu jirto inaan waddankii ku noqdo. marka ujeedada Farm Soomaaliya marka aan ka leenahay waxa weeye inay noqoto meel ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iido. ummadda Soomaaliyeed marka meel ka faa'iido say u noqoto waa inaan helnaa dad kale oo Soomaaliya oo aqoon-yahano ah oo nagala qayb gala hadda kaliya hawsha wada oo website fiican ayaa u baahanaa inaan dhisno oo aan gelino maaragtay videoska badino, inaan wixii koorsooyin ka dhigno, dadkiina aan lacag ka qaadin ee aan ka dhigno wax lacag la'aan ah oo dadku ka faa'iidaan, oo open source laga dhigo, dokumentiyada loo geliyo. marka qof kasta oo Soomaaliya oo beeraha bartay oo aqoon u leh waxaan ka codsanayaa inuu ila soo xiriiro, kabacdi aan wixii maaragtay aan ka qayb galno oon isla dhisno. midda kale dad kale oo beeraley ah oo walaalaha Soomaaliya waxaa jira xataa videos ii soo dira. marka qof kasta oo Soomaaliya oo beeraha ku dhex jira oo fikrad fiican oo waddankii u faa'iideynaysa ay jiraan inayna ila soo wadaagaan, kabacdina aan dadkii u gudbiyo oo ummadii kale ay ka faa'iidaan. haddana waa jiraan walaalo ii soo diray videos oo maaragtay qiimo leh oo ayagu wax samaynaya ama wixii aan sheegay practice inta ka dhigay u bedelay, oo markii aad aragto ilaan moogta markii afka aad ka sheegto wixii iyo markii lagu tuso wixii la sameeyay waa kala qiimo badan yihiin.
marka walaalaha marka wixii ay soo barteen ka dhigay wax ay gacanta ku sameeyaan ayakana inay videosna la soo wadaagaan insha Allah qorshahaasna waxa raadinayaa walaal kale website-ka la dhisi kara hadii jiraan ayadana waa la rabaa website-ka inuu dhiso oo maaragtay laga dhigo wax dadka dhan ay ka faa'iidaan marka insha Allah waxa rajaynayaa meesha billions-ka ay nooga baxdo cuntadana la siinaya ay UN-ka ay ku bixiyaan hadii wax yar ay ku bixi lahaayeen isbedel dadkii sababtoo dad laakiin badana UN-ki hay'adahan ayaka targetkoodu ma ahan dadka inay wax baraan ayaka qorshoodu waxa weeye qof gaajaysan inay cunto siiyaan ayagana mushaarkooda ka helaan laakiin maamulka iyo dawladda wadanka ayay wax u taalaa inay dadkooda wax baraan oo dadkooda because wadan aan lahayn ma jiro hay'ad beeraha hormarisa hadda Ethiopia kale hay'ad waxay leeyihiin beeraha hormarisa oo xataa dad ajnabi la shaqeeyaan oo wasaaradda beeraha hoos tagta isbedel aan caadi ahayn inay ku sameeyso Ethiopia marka anagana waxaan u baahannahay marka in aan sameeyno hay'ado noocaas oo dadkii beeraleyda ah wax bara dadkii shacabka ahana ku dhiirigeliya inay gataan cuntadii wadanka oo cuntadu ay cunaan oo ganacsatadu ay awood saaraan in beeraleydu wax ka gataan qorshaha waxaan rajaynayaa xilliyada soo socda inaan farm Soomaaliya aan ka dhigno maaragtay mid web based ah oo koorsooyin aan sameeyno online ah oo dadku ay wax ka baran karaan aan lacagna laga rabin insha Allah hawshaas Allah kugu guuleeyo waa hawl aad u fiican inta aadna loogu baahan yahay aad baan kugu magaalinayaa Ustaad Cali wax talo oo aad la wadaagayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee rabeen wax bartaan waxbarashada jecel aad ku dhiirigelin lahayd kelmad aad ku soo xirayso barnaamijka waxaan u maleynayaa saacad buu socday inta ka badan waxa waaye waa mar kale ma waxyaabo kale taan rabin aan ku daro laakiin intaan baan ku ekeenaa way tahay sababtoo ah waqtiga ku soo xir kulankeena ugu dambeeyana ma noqon doono insha Allah taala kulamo kale ayaa jiri doona oo insha Allah iska wareysan doono waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay ama channelkayga ka soo muuqano ama kaaga aan ka soo muuqano marka insha Allah taala balaada kelmadda aad ku soo xiri lahayd baan yaan kugu soo dhaweynaya horta talada ugu muhiimsan oo aan dhalinyarada u soo jeedinayo waxa weeye horta in waqtiga video aan loo sameysay kulli kuwa dhalinyarada aan fiirsadaan waqtiga inay ka faa'iideystaan waqtigu waa qaali مثلا waqtigooda inay ka faa'iideystaan waa la ogyahay social media waa ahan dadka waqtiga ay ka cunto ka baabiis dadku marka dulqaad uma lahan wax anfac u leh ayaka inay waqti ku bixiyaan ma rabaan waxaas qosolka entertainmentigaas ayaa la rabaa in waqti lagu bixiyo marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in waqti ka faa'iideystaan iyo nafteedaba iyo qof kasta oo naga mid ah in waqtiga laga faa'iideysto because waqtigan waa kooban yahay marka leena waqtiga laga faa'iideysto ma aha macnaheedu in anaga boqolkiiba waqtiga ka faa'iideysanay anaga hadalkaas isu sheegay dadka lagu sheegay anaga haysataa ma faad waxyaabo waa laga yaabaa waxyaabo inaan fiirsano aysan waxba dheexaan naga soo galeyn ma faad aniga mararka qaar waxaan jeclahay documentary-yaal inaan fiirsado mararka qaar marka waxaa laga yaabaa aqoon oo guud un ma ahane wax qaas inaysan iga soo gelin marka anaga dhaa waqtiga waa inaan ku xisaabtanaa oo ka faa'iideysanaa midda kale maantay waa lacag la'aan hadaad internetka fiiriso ama YouTube ahaato ama FAO kala ha ahaato hay'adaha kala ha ahaado jaamacadaha ahaadaan waxay leeyihiin sources aad u fara badan oo free ah oo lacag la'aan ah oo dadku ay ka faa'iideysan karaan sababtoo jaamacado badan waxay sameeyaan koorsooyinka ay bixiyaan waliba kuwa Mareykanka u badan koorsooyinka ay bixiyaan oo beeraha ku saabsan documentary badan ay ka sameeyaan oo beeraha ku saabsan oo la akhrisan karo marka kuwaas la faa'iideysto FAO kale barnaamijyo badan ay Soomaaliya ka soo sameeyaan oo beeraha ku saabsan ayakana hal akhriyo waxyaabahaas oo dhan markii dii laga faa'iideysto qofku waqtigiisa uu ka faa'iideysto insha Allah waxaan rajaynayaa dhalinyarada oo soo baxdo beeraha ku takhasustay wadankiina ma aragtay sababtoo ah wadanka maanta dadkeena jooga waa dhalinyaro u badan yihiin dhalinyaradiina marka ayagoo shaqo la'aan iska joogaan hadda dhinacan loo soo jeesto laga faa'iideysto beerihi hana laga bilaabo qof kasta ka bilaabo gurigiisa horta inuu practice ku sameeyo wax ku soo saaro kabacdina aan saas u gudubno markaas beeraha galno hadii ilaahay aad badan ma hasantaa Ustaad Cali Baashe aad baan kaaga mahadcelinayaa kulankan kulan aad u qiimo badan waa wax badan oo cilmiyan aniga kulli kororsaday waxaan rajaynayaa sidoo kale inay ka faa'iidi doonaan maxaa dhalinyarada daawatay iyo qodadka maxaa la daawado muuqaalkan waxaan ka codsanayaa dhammaan bahda channelkan ku xiran inay Ustaad Cali Baashe channelkiisa ka hordoonaan kana faa'iideystaan ayna isku dayaan sidoo sheegay
caamo iyo mid cilmi leh waa inay isku dayaan bal gurigooda inay ku beertaan meesha yaanyada ay soo gadan lahaayeen yaayo intaas la eg inay bal isku dayaan yaayo xoogaa balbalaaran inay abuuraan ayna greenhouse-yada iyo ay sameeyaan wax beerashada uma baahna aqoon siduu ustaadka sheegay oo keliya waxay u baahan tahay ku dhiirasho iyo inuu qofka isku dayo adduunkan waaba tijaabo waa cilmiga dhan oo la sheegayay waa wax tijaabooyin kala duwan oo la isgaarsiiyey oo la qoray unbaa dadka la isu gudbiyaaye ma ahan cilmiga cid wax ikhtiraacdo ma ahan macnaheedu wax ikhtiraacdo inaad wax barato looma barto marka aad baad u mahadsan tahay ustaad waxa waaye waa insha allah kulamo kaleeto sidaan horey u sheegayaan isugu imaan doonaa janalkaaga iyo kaygaba marka aad baan ku salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan wada xiriir sidoo kale walaalkiis aad u mahadsan ku salaamaya barakallahu fiik